furanaynaa barnaamijkii dabaaldega ciidanka qaranka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah maanta maalin aad iyo aad u weyn 12 abriil sanadka la xuso xilligii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa arrin markasta laga hadlo waxaana kaaga muuqanaysaa sharaf karaamo iyo waliba ciise aad u weyn iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu taagan yahay difaaca dalkeena haday noqon lahayd bari iyo cirba maantana waa maalin aad u weyn ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaana la xusayaa maanta waa maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadaynu nahay bahda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway waxaynu la wadaagaynaa walaalaheena meel walba ay joogaan inaynu la xusno asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa kaloo jira maanta maadaama la xusayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaguna waxa jira barnaamij kale oo ugu talagalnay inaynu kala qayb qaadano ciidankan sidii wax loogu qaban lahaa iyadoo halkani laga aasaasay urur loogu magac daray gargaar ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasoo horay aynu ugu shirnay marar badan magaalada Oslo marka waxaan jecelahay inaan ku wareejiyo mikrofoonka Shariif oo isagana idinkaga hadli doona xoogga dalka gargaar xoogga dalka Soomaaliyeed asaaskeedii idina sheegi doona waxyaabaha loo aasaasay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa idin salaamaya waxaan u salaamayaa salaanta islaamka waxaan wadaagaynaa farxad aan la wadaagaynaa xaalahay ciidamadeena xoogga dalka Soomaaliyeed mise difaaca qaranka ummadda Soomaaliyeed mise difaaca qaranka boomiyada Soomaaliyeed guud ahaan ayadoo ay maanta tahay 12 abriil oo ah maalinta loo asteeyay asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee xuskiisa intaba saad arkaysaanba meeshan waxaa ku xardhan astaanta ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo kamid ah sawirradooda magacaas meesha idin kaga muuqdana waa magacii gargaar caawinta xoogga dalka Soomaaliyeed marar badan aan isugu imaanay meelo badan oo Oslo kamid ah shirar noocaasna maartay aan dhowr jeer isugu imaanay marka ururkan gargaar haddii aan u laabto oo aan ka gudbo xuska maalinta waxaan u dayn doonaa adeer shahar iyo dadkii maartay u lahaa ehelku u ahaa oo annaga ciidan maana soo noqonin laakiin waxaan isku dayaynaa hadda inaan ciidankeena caawino wixii karaankeena annagoo martaa ka duulayna dhibaato markaas hadda maanta dalkeena haysata iyo guud ahaan ciidanka dhibaatada haysata oo ah maxaa la dhahay ayagoon haysanin caawimaad dadkooda xaggiisa ka socota way helaan caawimaad ummado kale ay caawiyaan oo loo soo bariyo dawlado kale iyo waxyaabo kale laakiin hase ahaatee may helin weli ilaa hadda caawimaad dhab ah oo Soomaaliya caawinaya oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa difaacaya una bixinaya maxaa la dhahay dhiigiisa iyo maxaa la dhahay hantidiisa iyo xoolihiisa intuu kari karo intuusan kari karin de Ilaahay u tal saarnayna marka ururkan waxaa la aasaasay sanadkan inkastoo naga maqan yahay hogaamiyaha ururkan oo ku maqan yahay xafladda ka dhacaysay Muqdisho haddana xubnaha ka tirsan ururka waxay isku dayayaan mar walba inay la wadaagaan farxadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maxaa la dhahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo u tahay maanta oo kale maalin aad iyo aad maartay u fiican inkastoo sidii aanan rabnay aysan ahayn haddana mar kastaba ma daynayno mana ka harayno inaan maartay aan ku soo noqono positionkii aan kaga jirnay adduunyada sidaas daraadeed ururkani waxaa loo aasaasay sida magaciisa ku arkaysaan gargaar caawinta naafada iyo caruurta iyo kiiliita oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waad ogtihiin oo dadka haday qofka haduu ciidan yahay waxa ku dhici kara dhibaatooyin fara badan waxa soo wajihi kara xanuun waxa soo wajihi kara maxaa la dhahay dhaawac waxa soo wajihi kara dhibaatooyin aan halkan u soo koobi karin oo markaas uu ka fariisto hawshii uu hayay qaranka waliba ka sii fariisto hawshii maslaxadii reerkiisa hataa uu ka sii fariisto marka haddii ninkii marka la ilaawo oo la iska badaayo oo halka la iskaga dhaafo waxaa dib noqon doonta in nin kale buuxiyo booskiisa la waayo nin walba ma aha machine waa bani aadam qofka maxaa la dhahay waa ogtiin wadamada aan joogo laga faa'iideys basharka markuu maarta xoog leeyahay in markuu uu taariikhayba waa la caawiyaa marka sidaas daraadeed anagoo ka duulayna ayaan u sameynay magacan gargaar xoogga dalka Soomaaliyeed si loogu helo fan Soomaali laga qaadayo Soomaali lagu celiyay oo cid kale aan lug ku lahayn marka nin walba intii uu kari karo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma aha ciidan qabiil difaacaya ma aha ciidan hatta qolo gooniya difaacaya ma aha ciidan maamul goboleedyada hadda jiro tirada badan difaacaya waa ciidan difaacaya ummadda Soomaaliyeed qowmiyadda magaca Soomaaliga meel kasta ha joogo koonfur galbeed waqooyi bartama ciri dhul meel kasta uu joogo
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد هلكن وحن كالسلام يا marwooyinka iyo mudanayaasha halkan ka soo wada qayb gala gidi waa salaamaya. waxaan kaloo salaamaya dhalinyarada, culumadiinka, saraakiisha, bahda saxaafadda. waxaan idinku salaamaya salaantayda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam maanta alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, ilaahay mahadiisa ayaan ku mahadinaynaa inaan maanta aan xusayno xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida inaan ku xusayno magaalada Norway, magaalada caasimadeeda magaalada Oslo inaan ku xusayno ilaahay mahadiis waaye. maanta waa maalintii 12 bisha Abriil oo xoogga dalka Soomaaliyeed oo la curiyay. haddii aan damcono inaan ka sheekeyno taariikhda ay leedahay xoogga dalka uu leeyahay, waxa waa weligeed dhammaan mays taariikh aad u fog oo dheer oo maalin iyo 2 maalmood looga sheekeyn karin way. laakiin wixii aan ka soo qaada karno oo gaagaaban ayaan soo qabsanaynaa. xoogga dalka waxaa la aasaasay 60kii ayaa la aasaasay. markii xornimada Soomaaliya ay qaadatay ayaa la aasaasay oo dalka ka baxay Talyaanigii iyo Ingiriiska ay ka baxeen ayaa waxaa la aasaasay xoogga dalka Soomaaliya ayaa la aasaasay. waxaana laga aasaasoo lagu bilaabay markeedii hore oo lagu bilaabay 400 ilaa 500 ilaa 500 oo ciidamada daraawiishta oo booliiska. markaas xoogga dalka ma uusan jirin, waxaa jiray ciidamada booliiska ayaa laga bilaabay oo waxaa lagu bilaabay ciidamadaas ayaa booliiska ah ayaa waxaa lagu bilaabay in ciidan loo suubiyo dalka. qaramada midoobay ayaa waxay go'aan ku gaartay markii xornimada aan qaadanay in Soomaaliya loo suubiyo ciidan qalab sida ciidanka qalabka sida in la suubiyo xoogga dalka in la suubiyo. waxaana jiray booliiska kaliya ciidamada daraawiishta kaliya jirtay oo ka koobnaa ilaa 400 ilaa 500 ka koobnaa. waa la soo wareejiyay, waxaa lagu soo wareejiyay ciidamadaas booliiska ah, waxaa lagu soo wareejiyay xoogga dalka ayaa lagu soo wareejiyay. markii lagu soo wareejiyay 1962 markii ay gaartay waxaa loogu deeqay dowladda Talyaaniga iyo qaramada midoobay oo dowladda Ruushka ayaa heshiis lala galay. heshiiska lala galana waxaa la galay ninka la yiraahdo ra'iisul wasaarihi Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo markaas ra'iisul wasaare ahaa. wuxuu heshiis la galay Ruushka, dowladda Ruushka ay Union Soviyetic ayuu la galay. heshiiska oo la galayna wuxuu kula heshiiyey in xoogga dalka la qalabeeyo oo la dhiso. dhisidii la dhisay xoogga dalkana waxaa la siiyey markii koowaad waxaa la siiyey oo nin walba uu ogyahay dadka da'deeda oo kale ah ay ogyihiin in la siiyey 32 milyan la siiyey 32 milyan oo dollar. hadda waagaas dollarku wuxuu ahaa sida maanta oo kale ma hayno. dowladda dhanba waxa joogtaba waxaanan qiimo lahayn joogta. kaaraha wuxuu joogaa intaas, rasaasta waxa joogta intaas, waxaaba ka sii weynaa in la iska kaasiyaba. intaasaa loogu deeqay ciidamada qalabka dharkoodii, qoryahoodii, waxoodii in loo sabriyo. heshiis haddana waxaa lala galay dowladaha sidii Masar oo kale, sidii Talyaaniga oo kale, sida Ruushka oo kale, sida Mareykanka oo kale in laga caawino Soomaaliya tababarkoodii iyo dhismahoodii, laana ciidanka dhismihiisa aad u dhib badan yahay. ciidankii waxaa la dhisay maxaa cirka, ciidanka waxaa la dhisay dhulka, waxaa la dhisay ciidanka badda, waxaa la dhisay sirdoonki, waxaa la dhisay booliiskii. wixii baa la isu wada keenay in la kala googooyo, waa la dhisay. dhismadii la taagay qaarna moodan ay aadeen, qaar waxay aadeen oo moodana waxay ku tahay dhinaca Talyaaniga, qaar Masar ay aadeen, qaar Russia ay aadeen, qaarba Mareykanka ay aadeen. waa soo tababarteen, waa soo noqdeen. dagaalkoodii ugu horreeyay ee Soomaaliya ay gashay 1964 waxay la galeen Ethiopia. kilinka shanaad ayay la galeen. waxaana hogaaminaya dagaalkaas oo 64 dhacay Salaad Gabayre iyo ninka la yiraahdo Allah u naxariistay iyo ninka la yiraahdo oo waxa la yiraahdaa Jana Daawud ahay ninka hoggaankaas loo diray
ودين عسلو دري جرا داود ومشى دم بود حكومي أصلا عيدا كودن بهاي لكن نيك لو دري ومشى لو دري صلاة قبيرية علم النور تربي علم النور فقال كاس لو دري مشى لو دري وحين كجلين دنيا قلدوب بيكجلين أيوة كلين كاس شانيد كلين كشانات لقالي دقال كيسيدو أسعد ولا جورجي هشيسة هذا عبد الرشيد يا دولتي مركز دولتي أيوة حلقة شيء توبي إن حبت جورجين لسمايو حبت جورجين تبى لسمي هل كاسي حبت كوي كاتو ويسون نقطي دقال كاسي تو استاجي دقال كمر كو استاجي عين كان اسم الله قالي الدون كويليا بين 1963 دولار توصل سوبن 1963 دولار توسكا أنسو بنا وحقيقة يبقى أفر ديورادات أفر نين أو كسر نقطي يوروب كسر نقطي بلمان كسر نقطي أما كسر قارو وحي كسر نقطي روشكا قارو وحي كسر نقطي مصر قارو وحي كسر نقطي محيط المريكان دولار توسكا لسميه دولار توسكا لسميه أفر نين أو مانتا اللهم نحرسته كل جود وده جيريودي هل نين أيام مانتا كنور أفر تنين وحكنا نين ليرة فيتان وبيرو تعبلا وحكنا لي هاي وحكنا لي مالي ذا جلالكس وكنا لي فيتان ليرة أيا كنور ما يستغفر الله وحكى له نون يسودك مرة لا ولا كلا تواد عند علمتاني إنك كلا تنشر معه أفر تاسع صون وقت أفرتين لبضع ساكن لبضع ونوش هاي لبضع وكذا عيدا كاس وحو جاري عيدا كيسيد اللون تسوي وحو جاري أفر بقول أو كن إلى شم بقول أو كن أو عيدا هو جاري عيدا كاس قبل كاسيدا الله تسوي ولا لا يارو ما أنت وحنا دين شيء من كان برونديا ما أنت يدين إلى لنا يا معلم بالوها دولة الصومالية أيها وحي سياسة منحة دراسية بورس السودية لسي إن يماران الصومالية إن وحلو برو إنفانتري ودن وحبان برني محاد دولياش ودن وحبان برتي معلمين توريان كمدنا أصل عبادة أي لجروب هاي قبل اللي يرى أصل حسن عبادة أي لجروب هاي أو دوليها marka waxaan idin sheegayaa Soomaaliya horta meeshaas ayay joogi jirtay Soomaaliya marka dadkeedii waxay ku dhamaadeen markay soo socdeen dagaalkii ay galeen 1977 dagaal ay galeen dagaalkii ay galeen waa dagaalka kaliya oo burburka keenay wax kale ma ahayn Soomaaliya dawladeedu way xoog badan ciidanku wuxuu gaaray inuu qabsado ilaa sababa oo waxba ka reebinba meel kasta loo qabsanayo دولتها وحيسنا ورنا من كان وين الجورجيا مرك ومالك اللي هو بتاع أفر عيدنا 1977 أفر عيدنا أو وين أي صومالي فوق جوات أفر عيدنا وين إيسا جرماني محيط اليمن محيط كوبا وإيراش كيو ديدن كل صومالي والله ده كلام صومالي عيدنا كان مركب بربركاس أيام كوي مد مركب صون نقدينا الدرجة كوسون نقدينا waxyaabo fara badan oo dalka ka dhacay ayaa haddana naafiyay oo sida maxay tahay inqilaabyo yar oo dhacay sida maxay tahay dad la tuhtumay waxyaabo noocaas ayaa dadkii aan soo dhaxgalay laakiin waxaan ku sheegayaa ciidanka walaalayaal in ciidan la dhiso wax ka culus ma jiro aad buu culus yahay qaran dhan hadduu dudumo ciidankiisana dhistaa waa ku adag وكسنا إن شاء الله. waxay ku adkaanaysaa wax kale maahan wax kale ku adkaanaysa maahan way aragnimay ka rabtaa annaga waagaan iskoolka ka aan ciidanka qaadinay hadii iska qaadamay ninka inta dariiq laga soo qabtay ma la dhayn war fulaan oo kale askari noqo war fulaan oo kale kan noqo lama dhayn ninka marka hore waa inuu superior ka baxo iskool superior ka baxa iskool superior markuu ka baxo wuxuu tagayaa maxay tahay warqad oo qornay amba sugnaad amba codsi oo qornay markuu codsiga qortay journal la yiraahdo Corriere della Somalia ayaa lagu soo qoraya amba waa barmoostay amba waa dhacday markaa barmoostay ka bacdi imtixaankaas aad u gashaan markaas lagu qiimeynaa
caafimaadkaada iyo imtixaan laga qaaday war ma baddaan geynaa ninkaan ma ciidanka cirkaan geynaa ma ciidanka dhulkaan geynaa intaan geynaa ma wardoonka marka ciidamada waxay ka koobnaayeen ciidamo fara badan markaasaa ninka raamihii lala rabay oo imtixaankaas uu ku barmoosay ayaa la geynaya waxaa la geynaya ciidanka cirka hadduu ahaa ciidanka badda hadduu ahay baddaa la geynaya hadduu ahaa maxay tahay mariina hadduu ahaa maxay tahay lugta hadduu ahaa lugtoo la geyn jiray ciidamada cirka وأنا أنا أقول تسمع من رميسنا إنسان شنبه ولا حبه خلوا كله طيب دون نوع والبقى هي النوية نوع والبقى وحكدا على صوماليا وحيابها كدا حي أيام دين شيء حلقي أوجو محمد سياد برا لون عريسته حلقي أوجو وحيابها دعاني دين شيء وحوي إسرائيل ديود إلها أيام الأفضل والله أفضل الديرودات والله أفضل وحصلنا ويران لو بقصد بقول غير إسرائيل هي سرية وحل وجود جي ماشي اللي هذا انتبه يوغندا هي اللي وجود جي وأفضل من الديرود إسرائيل وحرت الديرود إنه لا صوب حصل مرة ما يسمى إسرائيل مدحوينها إنه لو يمد ليرن نوع أنت لو تجي مراكن كلو تجي وحنا وأنا كصوماليا أينا دول مرنوي هذا ربنا انتبه إن تكن يوغندا سوماليا ما دول مركنا عيدا كذا عركة عيدا لو دوا كرامات مركة هلا عن صوت جديد وحاول الدولة المريكان إن الله هدلان مدحويني والله الله هدلي وحال لقى عطسدي طبعا يشن دقيقة إن سوماليا دول مران 15 years حتى السنوات بكويس سنوات أنا بحسوس الطيارة تاسيت أنا حسوس طبعا يشن دقيقة كلية أيا إنا ندول مرة والله أقول هذا هذا لا المرايكان الحب دبلوماسي ولا قلي المرايكان كي واحد يقولين والله أقول هذا سيدا هذا الله سبحانه تاريخ ده انتبه والله أقول هذا إنه يكسوقش إنه محايد الدول مرته أي محايد إلى صباح عند يودو أي قلين شن دقيقة إلى صباحين يوغندا ما أنتوا إلى الناس نيل هذا قوسار عبد القادر قوسار معلم كودي بوها قلت الله حافظ أني الصومالي أسرقان الصومالي معلم هوها ciidamadu tababaray sidaas oo kale ninka loo askar riyaasi Zaire dawladda leeyahay ayuu tababaray ciidan aqligaada galin ayaan lahayn maantana inaan ciidanka soo celinaaho oo meeshiisa ku soo celinaaho maaha dawladda Soomaaliya kaligeed inay dawladda Soomaaliyeed kaligeed inay wax qaban karto ama maleynaa qurbajeeg weyn oo la qabtaa ururkaas gargaar waa inaan la gargaarnaa والله بالله وإنا لك gargaar waa inaan waxaan gargaari karno waa inaan gargaarnaa ciidankii waa inaan aan xulnaa yaa noqon kara yaa ciidanka ka bixi kara yaa cilma iska soo qabsan maansha hadda dalka waxaa ka dhacay maxay tahay dhibaatooyin fara badan mooryaantii wixii dhacay inta soo qabtay inaad dhar u gelisaa tilaan ciidan waayo maahan ma kuu noqonaysa taas ciidan ma kuu noqonayo kaas kale meel kastoo kaa gelaya ciidanka waa nimaad xushay waa inaad adoontiisa xushtay waa nin tacliin yaqaan waa nin wax garab ah dalka iyo muwaadin ah oo dalka garan kara dal wuxuu yahay nin garan kara xuduudaas marka waxay kaa rabtaa xoolo fara badan ay kaa rabtaa dawladda keliyana ma bixin karto xoolahaas waxaa bixin kara qurbo joogta waa inay maxay tahay arrintaasu dhaxdu u xirtaan أنا والله أنا هاي ودي بيا وحلا وحكست waa mahadsan tahay marka waxaan aniga hadda soo jeedinayaa Soomaalida meel kasta ay joogaan meel kasta adduunka meel kasta ka joogaan meesha ay ka joogaan inay ciidankaas caawinaan aan lagu halaynin dawla wax ku dhisayso nin muwaadin waa inay noqotaa gabadhan waa inay noqotaa muwaadinad oo dalkeedii ilmahaada meel ay geysato waa inay ka samaysaa dalka waa inuu nabad yahay walaalayaal meelaan nabad jirin waxba kama samaysan kartid dalka nabadan waxaa ku soo celi kara xoogga dalka Soomaaliya meesha kasta ay joogaan meel kasta ay joogaan hadda Burundi aan kuma dhahay 100% Burundi wax ku qabanaysa Uganda wax ku qabanaysa waxa dalkaada wax ku qaban karo aad ku caabiyo waxa looga dhirgaa sabaha gacmaha looga dhirgaa marka waxaa idin sheegayaa aan ciidanka aan abuurno meel kasta Soomaali joogtana aan caawino ciidankaas oo ciidanka habkii loo dhisi lahaa aan u tawaawushana aan u istaagno ayaan dhihi lahaa ديار aad iyo aad bay wanaagsan tahay maadaama ayna dalka ku noolayn
inaan ku qayb qaadano difaaca iyo horumarka dalka qof waliba wuxuu ka qayb qaadan kii dhaqaale ku kordhin kara kii aqoon kale ku kordhinaya kii dalka tagaya oo ka qayb qaadanaya intaba waxa aad loogu baahan yahay qof kastoo Soomaaliya waajib baa saaran waajib waxa weeye difaaca dalkiisa iyo horumarka dalkiisa ka saaraya qof kastoo ku soo waajibay nin iyo rag iyo dumar baa aad buu fiican tahay aad baan u farxay markaa arkay magaca gargaar ciidankaaga inkastoo dawladdu meesha ka jirto oo dawladdu ay budget leedahay qorshe u samaysay isla inaga qudheen waxaanu kaga baahan yahay inaanu difaaca ka qayb qaadano oo hanti ku bixino maadaama ayna nafteenna geynayno waxbarashada caafimaadka wax kastoo dalka ku horumarayo qof kastoo Soomaaliya waa waajib saaran Soomaalinimada ayna faraysa waa in laga qayb qaataa waa wax wanaagsan waa dhiirigelinaya dadka sameeyay magaca soo jeeday fikradda aad baan u dhiirigelinayaa waqtigaas anoo ilaalinaya aad baan u mahadsantihiin sida waxaan loo dhegaysteen waxaan u mahad celinayaa saxaafadda oo la-aanteed waxa qoray maasiiskii qoray waxa gudbiya waa saxaafadda وسلامتي maanta waxaan meeshaan isugu nimid tobanka abriil oo ciidamada qalabka sida baardagoodii waxaan salaamaynaa dowladda Soomaaliya ciidamada qalabka sida meel kastoo ay joogaan oo walaalaheena raaskayboon ilaa raas casay ilaa dal iyo dibad meel kastoo joogaan ciidamada qalabka sida ayaan salaamayaa dowladda Soomaaliyeedna waa salaamayaa ururada u ololeeya maaragtay ciidamada qalabka sida daryeelkoodana waa salaamayaa iyagana waxaan ku hadlayaa magaca ciidamada qalabka sida oo Soomaaliyeed waxaan ahay askari ka mid ah ciidamada qalabka sida annagu haddaanu nahay ciidamada qalabka sida waxaan ahay difaaci dalka waxaan ahay xoogga dalka Afrikada waxaan ka mid nahay dawladaha ugu horeeya xornimada qaatay Kenya iyo dawlado badan way naga wada dambeeyeen ayagoo sidaa noogu wada dambeeyay kuwa naga horeeyaan ka xoog badanay oo ka ciidan badanay oo ka awood badanay ciidankeenu ma ahayn ciidan qabiil ma ahayn ciidan maaragtay ku dhisan kala sooc ku dhisan wuxuu ahaa aabbo iyo hooyo ahaa koobka shaahan wada shubanayna kii maanta jeebkiisa ku jirtaan aan wada isla cabayne annagoo nin walba meeluu ka yimid iyo meel u dhasho Soomaali aan isu dhaafi karin ayaan ku kalsoonay oo Soomaalinimada ayaa nagu weyneyd Soomaalinimadiina maaragtay maadaama qarankeena uu dumay haddana waxa weeye intaad qaaday xubin cuskay yaana niyadda ka jabin ciidamadeena aan soo celin si alla saan ku taageeri karna aan ku taageerno aan boorka iska jabno Soomaaliya haysidin qaranka waa dhacay wali waa noolahay ciidamadii way jireen dadka buuxiya shahro maanta hadda nin oday waa duuliye sare diyaaradaha ku soo duulinayna jirin maanta hadduu wax kala qaban macallin buu noqon karaa nimanka diyaaradaha wax bari karaa wax kastuu qaban kara shaqo kastuu maanta ma qaban kara wariyada yaan laga jabin saraakiisheena bannaankay daadsan tahay wax kastay qabatay jeer baan leenahay dhaqtar baan leenahay muxuu duuliye sanaanu leenahay injineeraanu leenahay wax kastaan leenahay oo dad leeyahay niyada yaanaan ka jabin ciidamada aanu dhisno waddan aan ciidan lahayn wax jira ma aha maanta waxaa cadowkasi noogu hawood waa ciidan la-aanteena waa tabaryaradeena dowlado badan oo moodayna gacal waxay ka xun yihiin inaan ciidan yeelano waxay ka xun yihiin inuu ciidankeenu xoog yeelo waayo naftooda nooga baqayaan war maalintii ciidamada Soomaaliya waagii ciidanka militariga la aasaasayay intaan hadda dowladda Soomaaliya ka tabaryarada wayna ka lacag yareen laakiin niyad baa la hayay niyadii la hayay oo kale waa inaan la nimaadnaa waa inaan ciidankeena dhisnaa waa inaan waddankeena difaacnaa waxaan noo jooga waddankoona leeyahay waxbay difaacayaan war ciidankeena ka fiican ciidankeena ka niyad wanaagsan kana wanaagsan lacag kuma shaqaynayaan haddii niyadda loo dhiso oo waxay isku daafacaan la siiyo lacag uma baahnee niyad bay u baahan yihiin ciidanka hala taageero hiili oo aanu ku taageerno maanta waa maalin weyn waa maalin farxad ah farxad u tahay wadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aniga maasatan farxad weyn bay tahay caawa inaan kasoo qaybgalo meel munaasabad loogu sameynayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqda shucuurteedana ma qiyaasi kartaan sida ay tahay because aniga ma yihi sida dadka caadiga oo kale aniga waxaan ahay gabar kusoo kortay guri ciidan walaaladay waxay ahaayeen saraakiil aabahay wuxuu ahaa ciidanka
nabad sugidda Soomaaliya ahaa ninkii soo korsaday wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya marka waxaan ku abtirsadaa xaqiiqdii abtirkayga waxaa weeyaan ciidamada dalka Soomaaliya waxaan u malaynayaa waxaan ka bilaabay iskuulkaygii hoose dhexe iskuulkaygii primary iskuulkayga waxaan ka bilaabay Beledweyne Sadol Gure iskuuladaan dhigan jiray waxaan xasuustaa diyaaradihii xabashida markay soo geli jireen dalka Soomaaliya markay soo geli jireen baan xasuustaa waxaan xasuustaa inayna awood u lahayn diyaaradda markay soo gasho in ayna waxba ridi karin oo dabxirinta lagu sameeyo ay hawada Soomaaliya saas u dhex meeraysato iyada inay dhacdo iyo in ay carabtay iska baxda mooyaane ayna wax ka sameyn karin maanta laakiin meel kale aanu joognaa oo aanan ahayn meeshii aanu joogi jirnay iyo awooddii aan lahayn magacii aan lahayn sharaftii aan Soomaaliya iyo adduunka geeska Afrika aan ku lahayn maanta ma haysano waxaa koosgareeyana wax kale ma aha civil war baa koosgareeyay dagaal dhexdeena ah oo annaga dhexdeena ah iyo kala gogo iyo burbur baana dhexgalay kaas baa koosgareeyay laakiin waxaan jeclaan lahaa maanta wixii aan dagaal waxaa la yidhi wax colaad waxaa la yidhi dagaal nabad wax kaama tarto dagaal joog balse ma I don't know wax Soomaaliya ku jiray oo maybe maama ay ahayd kolley dagaal waan aragnay resultigiisa waan haynaa qurbahaanu joognaa waan ku rafaadsanahay qaar baa badaha ku rafaadsan waddanka gudihiisii waa lagu rafaadsan yahay sumcad ma lihin adduunkii sumcad kuma lihin sumcadeenni iyo sharafteenna waxaan kusoo ceshani karnaa wiilashaa yaryara dhuudhuuban qof walba ayaa ka adag nin walba oo adduunka ku nool ayaa ka adag haddii la saboodgareeyo bismillaahi raxmaani raxiim anoo ku hadlahay magaca haweenka Soomaaliyeed ee dalka Norway kuna dhashay dalka Soomaaliya aadna aan ugu tiiraanyeysanahay maanta dhibaatada haysata ciidanka xuduudda dalka Soomaaliyeed anigoo ah aan kusoo koray ciidamo ka mid ah si kastoo xoogga dalka Soomaaliya kuma korin laakiin hooyadii waxay ahayd ciidamada asluubta waxaan kasoo jeedaa dal aan dhahay askari marka aad ugu faraxsanahay wixii taageero ahna waa diyaaranahay marka kastoo wax badan aan ka aqoon aniga maartay ciidamada arrimahooda laakiin maasha Allah ugu faraxsanahay ururkan dadka aasaasay ee dalka Norway oo ku taageersanaa maadaama aan u hadlayo haweenka Soomaaliyeed ee dalka Norway ayuu joogo marka waxaan ku wareejinayaa walaashay militariga caawiya dawlad madax bannaan military la'aantiis ma shaqayso shacabka maalinkay lahaayeen waa in loo mashxaradaa bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan martida sharafta leh kasoo qayb gashay maalinta xoogga dalka Soomaaliyeed aasaasay anigoo ku hadlaya magaca ururka gargaar xoogga dalka Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaana jeclahay dhammaan Soomaalida meel kasta ay joogto inay ururkan u istaagaan oo ciidamadoodii dalkooda u istaagaan haddana waxaan ku gudbinayaa dhalinyarada ka mid ah ururka run ahaantii aad iyo aad horta ayaad ugu mahadsantihiin dhammaan inta nagala soo qayb gashay xafladan weyn ee aadka iyo aadka u weyn ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan annagu haddii nahay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway run ahaantii waxaynu ka mid nahay guddidan ururkan gargaar oo u istaagaya caawinta xoogga dalka Soomaaliyeed oo aynu doonayno fikradan inay noqoto fikrad dhaxalgal ah oo caalamka oo dhan ku baahda Soomaalida meel walba ay joogtana ay si aad iyo aad ugu daydaan haddii ay taasi dhacdana waxaynu gaaraynaa guulo aad u waaweyn taasoo keeni karta in ciidankeena uu noqdo mid waxqabad aad u weyn si fiicanna wax u qabta ammaanka haddii noqon lahayd difaaca dalkeena guud aad iyo aad ugu mahadsantihiin kasoo qaybgalkan wanaagsan aad uga soo qaybgasheen xagga bixinta waxaan rajaynayaa oo aan jecelnahay inaynu xagga hore annagu aynu noqono kuwa maaragtay bilaaba si wanaagsanna lacagta lagu taakulaynayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u bixiya bil walbana insha Allah waxaynu bixin doonaa lacagaha aynu ku gargaari doono ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo koonto loo furayna ay jirto badan kulli halkaas ma inuu istaagin sida walaaladani soo sheegeen iyo gabdhihii naga horreeyay oo dhan dhammaantiin horta waxaan halkan uga mahad celinayaa walaalkeen Abdoon oo hadda halkan naga maqan maantana macnaha social media ku wada hadlaynay iyo dhammaan dadka kala soo qabanqaabiye gaar ahaan magacaabo dumaashiday ama xaaskiisa Naciimo runtii qabanqaabo badan la samaysay
oo gabdhaha firfircoon ku jirta iyo gabdhaha kulligii gabdhaha halkaan wada yimid waxaan halkaas ku nimid runtii waxa weeyaan ururkan gargaar inaan ka wada qayb qaadano inaan dalkeena waxaan u tari karno inaan ciidamadeena waxaan u tari karno runtii waa tiiraayo markii lasoo xasuusto maanta 60 sano kahor iyo maanta meeshay joogaan laakiin biyo sacbadaada looga dhagaa waxaan leenahay biyo sacbadaada looga dhagaa ciidamadeena aan taageerno marka waana mahadsantihiin dadka soo qayb qaada السلام عليكم حاول أن أنت وأنت اليوم كان هذا شيء لكن هذا اليوم حقود ليا أول كان وأول أنا عاوزة لقى عيدا كنا إن ما يكون عشينه شرف حقول إن دول كانوا هيو هذي مثلا أنا دول كانوا يستاجين بريتو وين ما هي جيبسيا تذكر وش تقول عن ترى قلنا وكلنا لكن إحنا كقبل كنا وأنا روت الشديد لكن أنا قاعد أشكر وما سنتي gargaar baan ahay anigu haddana gurmad waxaan u ahay ciidamada guntadee u kacay guud ahaan geyigeenna iyo Soomaaliya gees walbaba maatadoodan garab siinayaa naafadaan u gargaarayaa dhaawacoodan soo gurahayaa isbitaal baan geynayaa Soomaaliya wada guntada oo garab istaaga ciidamada guushi waynu gaarnay ururkeenu wuxuu qordhac u ahaa bilow sidii loo caawin lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan ognahay xaaladda maanta ay ku jiraan iyo sida ay maanta ay u fulinayaan howlihii qaranka uga baahnaa dhibaatada ay maanta ku shaqeynayaan waad aragtaan markaa waxaan nuudsanaynaa haddaan nahay ururka gargaar in la caawiyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gabar nafteedii oo calankeena xiratay oo dharkii militariga xiratay oo nafteena rabtay inay badbaadiso dalkeeda iyo dadkeeda inay difaacdo maanta u labisatay miyaan $20 kala baqiilayna walaalayaal please aan dalkeena iyo dadkeena wax tarno barnaamijkii 12 Abriil maalinta ciidamada ah ayna ka qayb galeen dad badan oo Soomaali oo haween iyo rag kale ee soo aaway ururka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dalka Norway laga dhisay ayaanu daawaday intaas si ku soo gabagabeynaa barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono waaniga Xasan Saciid Xasan Rasta dhammaan saxaabtida halkan iga joogta kaameramanka iga caawiyay sawirka wardoona saaxiibkay Cali Wadani waxaan idinku dhaafaynaa sida ay nabadgeliyo nolol kulantiis maqal iyo aragtida qoraysan